kulankani oo isugu yimaadeen odayaal siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa mid lagu taageerayo xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo dhisay ra'iisul wasaare Cabdulle Sheekh Axmed Maxamed iyaga oo sheegay in golaha wasiirada ay yihiin kuwa wax badan ka qaban kara marxaladda haatan dalku uu marayo. qaar ka mid ah waxgaradkii kulankaasi ka hadlay ayaa si isku mid ah hambalyo iyo bogaadin u jeediyay xukuumadda cusub iyaga oo rajo wanaagsan ka muujiyay inay ka soo dhalaali karaan waajibaadkii loo igmaday. sidoo kale waxgaradkan oo hadalkooda wata ayaa ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya inay meel mariyaan xukuumadda cusub ee uu dhawaan soo dhisay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya si ay u gutaan waajibaadka ka saaran dalkooda. waxaan horta rajaynaynaa awalan in dawladda xukuumadda hadda la soo dhisaayo ay taabagasho maxaa yeelay waxaa jirta baahi fara badan oo Shabeellaha Dhexe Soomaaliya oo dhanba baahi fara badan ka jirto codsigayna waa fara badan yahay. awalan baarlamaankana waxaan ku codsanaynaa inay soo dedejiyaan maadaama baahi badan ay jirto walow ay u sii badan tahay Shabeellaha Dhexe. taageeraynaa dawladda cusub iyo wasiiradeeda iyo madaxweynaha aan taageeraynaa haddii alla laga helo aan nahay degmada balcad khiyaarteeda diinkeeda nabadgelyo haddaan nahay waxaan la rajaynaynaa inay haddii allaga dhibaatada aan ku jirno aan uga baxno dawladda cusub saasaan rajaynaynaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi. kulankan ayaa qayb ka ahaa kulamo isdaba joog ah oo gudaha iyo dibadda ka dhacay kuwaas oo lagu taageerayay xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaruhu soo magacaabay. Mustafa Maxamed Xiire, telefishinka qaranka Soomaaliya, Muqdisho.